wafdi ka socday dawladda federaalka Soomaaliya oo ku sugan magaalada Baydhabo ee xarun goboleedka Baay ayaa maanta u kuurgalay xaaladda boostada iyo isgaarsiinta ee magaalada Baydhabo halka ay gaarsiisan tahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta iyo agaasimaha guud ee wasaaradda iyo wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta si wada jir ah u booqday jaamacadaha ku yaala magaalada Baydhabo iyo gurigii wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta ay lahayd ee ku yaala magaalada kaasi oo xilligan burbur laga dareemayo ayagoona soo indheeyay xaaladda rasmiga ah ee boostada iyo isgaarsiinta xilligan ka jirta magaalada Baydhabo wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta mudane Maxamed Omar Saytuun ayaa si weyn u soo dhabeeyay xubnihii ka socday wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya waxa si rasmi ah maartay booqasho noogu yimid wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta ee federaalka maartay oo hogaaminayo wafti ka socda oo hogaaminayo wasiir ku-xigeenka boostada iyo isgaarsiinta iyo xubno kale oo maartay wasaaradda ka socda halkaas oo maartay maanta ay noo suura gashay alxamdulillah ilaahay baa mahad iska leh in aanu booqano 4 jaamacadood oo ku taala magaalada madaxda Baydhabo oo aan ku soo booqanay jaamacadii oo xabad u tagnay annagoo waraysiyaal kala duwan oo dhinaca internetka kala yeelanay wasaaraduna waxay ballan qaaday dhinaca tiknoolajiyada waxa la wixii ay ka geysan karaan jaamacadahaas inay dadaal badan ku bixinayaan sidoo kale waxa goobta ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta dawladda federaalka Soomaaliya Axmed Xaaji Cabdi isagoona sheegay in shirkadaha isgaarsiinta ee ka howlgala dalka in ay iska duwaangeliyaan wasaaradaha dawlad goboleedyada ka jira gudaha dalka si loo ogaado dhaqdhaqaaqa isgaarsiinta laakiin waxaan rabaa inaan fariin khaas ah u diro dhammaan shirkadaha isgaarsiinta ee ka howlgala dalka Soomaaliya wasaaraddu waxay wadaa shaqo culus oo runtii muhiim ah sanadkan 2016 waxaan rabnaa inaan wasaarad ahaan dalka Soomaaliya oo dhan gaarsiino adeegga isgaarsiinta noocyadiisa kala duwan wixii aan ku kabi karno iyo mashruuca World Bank qaybta ICT uu nagala shaqeynaa iyadana inaan gaarsiino jaamacado badan iyo wasaaradaha dawlad goboleedyada qaarkood kuwa nala xiriira ama aan shaqada tooska wada yeelan doono hadii la yiraahdo bisha January hadda bilaaban doonto sanadkan cusub dhammaan shirkadaha isgaarsiinta ee bixiya adeegyada kala duwan ee isticmaala hirarka kala duwan ama raadi ahaado ama TV ahaado ama qolyahan internet ka bixiya ahaado ama isgaarsiin telefoon ahaadaan dhammaantood waxaan rabnaa inay iska diiwaangeliyaan maamul goboleedyada ama dawlad goboleedyada ay joogaan hadday banaadir joogaan dawladda federaalka wasaaradda iska diiwaangelinayaan haddii ay koonfur galbeed joogaan iska diiwaangelinayaan wasaaradda boostada isgaarsiinta sidoo kale Puntland iyo Jubbaland iyo Galmudug iyo Hiiraan iyo gobolada soo hadda dhismaya dhammaantood waxaan rabnaa inay iska diiwaangeliyaan si ay u helaan sharciyada ku habboon adeegga ay bixiyaan wasaaraddu waxay la shaqeynaysaa dawlad goboleedyada wasiiradooda iyo maamul goboleedyada kale ee dhismaya ugu dambeyntii wasiir ku-xigeenka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Jamaal Xasan Ismaaciil ayaa sheegay in ay tagi doonaan dhammaan maamul goboleedyada ka jira gudaha dalka iyo kuwa haatan la dhisayo kulli sida aan ku nimi ayaa loo wada mar doona qolo kasta loo ogaan doona in magaranaysaa loo ogaado wasaaradaha boostada iyo isgaarsiinta technology ahaan halkay taagan yihiin iyo heerka marayaan si aan u samayno kor ugu qaadno aqoontooda xirfadeed ee wasaaradahaas capacity building ha noqoto ICT sector ha noqoto oo magaranaysaa technology casriga uu isbedelaya Allahumma salli ala Muhammad ha noqoto magaranaysaa in jaamacadaha xagoodii oo laga haqabtiro haddaan internet capacity aan jirin oo la haysan ay tahay inaan aqoon badan shaqeyn maanta casriga joogno marka laga hadlo oo laga baxay casriga buuga oo moodin wax walba laga soo dejiyo internetka laakiin qofka haddaan haysan awood ku filan oo limit ma shaqeynayso Maxamed Aadan Socdaal TV-ga dawladda Jubbaland magaalada Baydhabo